السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعيني نص عدي قابك عرورت وحكو برا لها يرقى 6 سنة جر إلا 5 سنة جر عيالك oo ABCda ما شاء الله soo dhameyn xarufteed weyn xarufteed inta waa soo dhameynay maanta waxaan ka hadlaynaa shibinaha iyo shaqalka consonant and vowel aan ka hadlaynaa insha Allah qaabka u kala baxayaan qaabka loo kala loo dhigdhigaya qaabkaas ka hadlaynaa insha Allah nala socdo midi kale tan waxa fiican cunuga markastaba inaad u isticmaashid four lines book insha Allah ilaah u fududeeyo wax kastaba ee awlaadena awlaad muslimka ilaah u fududeeyo wax barashada soo cunuga sida aad u hagarbaxaysid qofka uu hagarbaxayo malaha soo inaad wax u baratid oo ilmaha guriga homework ka cabsatid oo qaabka cunuga wax u qoran lahaa markasta u sheegtid wax ka fiican maaha soo waalid uu hagarbaxayo qof kale ma kugu hagarbaxayo marka four lines book aad u fiican yahay ilmaha si fudud u baranayaan farta ugu farxoonaanaysa ilaa grade 3 oo ka gaaray four lines book aad isticmaal marka nala soco qaybta daba insha Allah waxaan tusayaa qaabka u dhigmaysa vowelka qaabka u dhigmay consonantka qaabka u kala dhigmay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. إله نوفذ وحكستو بسيط الله نوقدر وحن بلا بينا موضوعيني وهاي شبينها إي شقلك consonant and capital letters إي vowel بلا بينا إن شاء الله إله نوفذ بين الله كريم سأجديبه وكان إي شاكنا consonant waa ujeedin sida ujeedinba intani ugu qoran tahay oo si caadi ah ugu jeedin intana waa ujeedin vowelka waaye oo si caadi ah ugu jeedin insha Allah ilaahani fududeeyo hadda waxaan bilaabaynaa vowelka qoraalkiisa inta ay ka bilaabanaysa xarafka meesha uu ka bilaabanayo qorayna insha Allah hadda aan qorayna oo sida qaabka loo qoraayo oo mar hore soo sheegnay si ko iyo standing line easy ilmaha ilaahay iisa loogu dhigi ilaahay ilmahana waxbarashada Allah u fududeeyo bacdeen waxa ku xiga i markastaba marno sida cunug uu fududaan karta ugu sharxaysa hadii saan u fududahay oo dhahaysid si ko saasa u soo qoray si koodii saas ahayd hadana saana u soo qoloocnay ama hadii rabtid saan si ko inaad dhigtid asaan u soo hariiqdays qaabka asiga uu fududaan karta labadaas waa easy see after see waxaan noogu xigaysa I oo hal dood la siiyaa I after I waxaan noogu xigta oo markastaba iska easy waa noon jirxaad ma baahna ano sii koow leewaayo oo saas la soo dhahay oo haddana la sii wareejiyay saas oo isku keenay oo saas leewaayo okay iyo markastaba yuuda u dambayso marka inta ka bilaabanaysaa finger vowel laha kan ciyaalka si wax u fududaan easy waa simple waaye gacmahooda ciyaalka soo qaadaysaa waa dhigaysaa way ku sawirayaan saas u sawirayaan ma fahamsa yani simple waaye maxaa ka bilaabnay a iyo I O U فهمت شنتي فينجر أساس ساسي وفضانيسا سو هدي يعني سبحان الله وعنق أو كأت كذا أركتد وسوع علنيسا مركز توا إن على برا فافل معناه ليها إيش كونسنت معناه ليها شبناها إيش شقل كاف صومالي شبناها إيش شقل فهمت شبناه كان وحروف توا وين ده iyo shaqalkiyo oo xarufta yaryarka ah ma fahanti soo maxaa ka bilaabna xarufta yarka maxaa ka bilaabna aan ka bilaabno farta oo ishak sulka iyo askale askale sulka waa kana hadana iyo ku xigta aya ku xigta oo ku xigta iyo ku xigta marka intaas insha Allah nigu soo koobaya insha Allah markalena waxaan ka hadla doonaa qaabka kiciska cunuga u baran lahaa insha Allah ka hadla doona been ilaahi kariim soo mowduucayna waa ka saa intaas aan ku soo koobnay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.